diinta ayay ka baxday si ay ula midowdo wiil ay jeclay. Kadib markii diyaaradiisa lagu soo waday dalka Suuriya, waxay go'aansatay inay u arguddo basaasad qiyaamaysay Falastiin saygeeda Yahuudiya dartii. waxaa ka tagay jaceylkeeda oo Falastiini ahaa, isla markaana waxay waxbarasho u aaday dalka Jarmalka. Intii waxbarashada ku guda jirtay ayay isbarteen wiil Yahuudiya oo ay isjeclaadeen ayadoo qaadatay diinta Yahuudda. saygeeda ayaa lagu dilay Suuriya, markaas ayay go'aansatay inay u arguddo. khasaaro fara badan ayay gaarsiisay Falastiiniyiinta. basaasada magaceedu waa Aamina al-Mufti. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. waa qisada gabar basaasad ah oo qiyaamaysay wadankeeda iyo diinteeda wiil ay jeclay dartii. waana gabar u dhalatay dalka Urdun sanadii 1939 ayay ku dhalatay caasimadda Ammaan. yaraanteediina waxay xoog u jeclaatay wiil Falastiini ah, isna wuu qiyaameeyay wuuna ka tegay. si ay u ilowda Aamina waxa ay u safartay magaalada Nimsa ee dalka Jarmalka iyada oo bilowday barashada cilmu nafsiga. waxay isbarteen gabar Yahuudiyad ah oo ay walaalayihiin wiil wada diyaaradaha rakaabka ee Nimsa oo lagu magacaabo Moshe Bread. Moshe waxa uu Aamina ka caawiyay inay hesho shahaado dhakhtarnimo oo been abuur ah. Aamina waxay la noolaatay Moshe qoyskiisa Yahuudda ah iyada oo jacayl u qaaday isagana. kadib waxay ka codsatay inuu guursado, balse wuxuu shardi uga dhigay inay qaadato diinta Yahuudda. iyaduna kuma ay welwelin ay qaadatay. magaceeduna waxa uu noqday Ani Moshe Bread. markii uu bilaabmay dagaalkii u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil sanadii 1967 waxay Israa'iil uga codsatay si mutadawacnimo ah muwaadiniinteeda duuliyaasha ah inay dowladda ka caawiyaan difaaca dalka. Aamina waxay damacday inay Moshe ku qanciso inuu aqbalo dalabkaas. ugu dambeyntii Moshe waa uu ka yeelay, waxayna aadeen Israa'iil. duqeymihii ugu horeeyay ee uu ka fuliyay Suuriya, ciidamada difaaca ee Suuriya waxay soo rideen diyaaradiisii. Aamina war naxdin leh ayaa soo gaaray, balse ma aysan rumaysan ee waxay u qaadatay in la afduubay. Aamina waxay si mutadawacnimo ah ula shaqaysay Mossad oo ah ciidamada sirdoonka Israa'iil ee dibadda, iyadoo go'aansatay safar dheer oo ay ku raadinayso halka lagu qariyay Moshe. Suuriya iyo Lubnaan ayay ka bilowday baaritaanka xaqiiqa raadiska, waxayna aasaasay shabakad ka shaqaynaysay xiriirka iyo ciddii ku hagi karta ururka xoreynta ee Falastiin. raadin dheer kadib waxa uu caddaatay in saygeeda la dilay, waxayna go'aansatay inay u wareegto marxaladda argoosi. shaqadeedii ugu horeysayna waxay noqotay inay la seexato sargaal haysta aagga telefoonada, uguna hanjabtay inay fadeexadeen doonto, kana dalbatay lambarada hogaamiyayaasha ururka xoreynta ee Falastiin. shahaadadii dhakhtarnimo ee been abuurka ahayd ayay u adeegsatay xeryo lagu daweynayay qaxootiga Falastiiniyiinta, halkaas oo ay xogta sirta ah ay la wadaagaysay Mossadka Israa'iil. waxay gacan ku daweynaysay dhaawaca Carabta iyadoo tan kalena ku saweysay dhimashadooda. waxay soo ogaatay qorshayaal tiro badan oo la xiriira howlgallada biimada ah. Israa'iilna waxay dili jirtay xoogaga iska caabinta inta ay howlgalladooda fulin. waxay ka soo agdhawaatay Carafaad, ayna heshay xogtii George Habash, waxayna noqotay basaasadii ugu halista badnayd ee Israa'iil. Aamina waxay wada hadleen wiil ku noolaa magaaladii ay jaamacadda u aaday ee Nimsa, kaasoo xiriir la lahaa saygeeda walaashii, waxayna u qirtay inay damacsan tahay argoosi. Aamina waxay ku soo laabatay Lubnaan, halkaas oo ay ka sii wadatay howlgalladeedii argoosiga ahaa. intaa kadib waxay degtay qorshayaal iyo sirbaadis fara badan. ku darso xilligaasi waxay Israa'iil aad u doonaysay Ali Hassan Salama, kaasoo loogu magac daray Amiirkii Casa. way soo gaartay Ali, waxayna ka wareysatay caruurtiisii. waxa uu la yaabay gabadhan, isna weydiiyay sida ay ugu suurto gashay inay Aamino ogaato caruurtaada iyadoo sirdoonka intaa leeg ugu ag xiran yahay. waxa uu damcay inuu raad raaco gabadhan, isagoo ay u suurto gashay inuu la xiriiro wiilkii Falastiiniga ahaa ee Nimsa wax ka dhigan jiray. ugu dambeyn waa la ogaaday shaqadii Aamina al-Mufti ee basaasnimada ahayd. jidka u dhaxeeya Lubnaan iyo Suuriya ayaa lagu qabtay, waxayna isku dayday inay isdisho, balse kuma ay guuleysan. waxaa lagu xiray mid ka mid ah xabsiyada Lubnaan, halkaas oo Aamina ku dhamisay nooc kasta oo ka mid ah sida dadka loo jirdilo, iyadoo uu rajeysay dhimashada kumanaan jeer ilaa ay ku qanciso nin askari ah inuu la baxsado ayna aadaan halka ay Israa'iil, balse waa uu fashilmay. askarigiina nafta ayaa la dhaafiyay, halkii ayayna Aamina ka sii wadatay ciqaabtii xabsiga iyo jirdilka. intaa kadib waxay Israa'iil codsatay maxaabiis Falastiiniyiin ah ay haysatay inay ku bedelato Aamina al-Mufti, isla markaana waxa uu heshiisku ka dhacay jasiiradda Qubrus.
Aamina waxaa dib loogu celiyay Israa'iil waana dhammaadka sheekadii ku saabsanayd basaasadii Carbeed ee Aamina al-Mufti. daawadayaal kulanti dambe oo xiiso leh.